madaxweynaha dalka Ukraine ayaa sheegay in 1300 oo askartiisa in lagu dilay duulaanka dowladda Ruushka ay ku qaaday wadankaasi Ukraine. waxa uu soo jeediyay in wadaxaajoodka nabadda loo wareejiyo dhinaca Israa'iilna ay garwadeen ay ka noqoto si dagaalka loo joojiyo. ku-xigeenka ra'iisul wasaaraha wadanka Ukraine ayaa waxa ay shaaca ay ka qaaday in 13,000 oo iyagu ka soo jeeda wadankaasi Ukraine laga saaray maalintii Sabtida ahayd wadankaasi iyagoo la marsiiyay marinada bini'aadanimo ee horey loo furay. waxaana la tilmaamayaa in tirada maalinta kasii dambeysa ay sii kordhayaan ee iyagu isaga cararaya wadankaasi Ukraine. Irina Firashok ayaa warqad ay soo dhigtay barta internetka waxa ay ku sheegtay in ilaa iyo hadda aysan suurtagelin hal qof inuu ka baxo magaalada Mariupol ee go'doonsan. waxaana ay dusha ay kaga tuurtay eedeen dowladda wadankaasi Ruushka ciidamadeedii oo iyagu go'doomiye ayaa la yiri magaaladaasi, waxaana loo diiday dadka rayidka magaalada inay isaga baxaan. xukuumadda Moscow ayaa waqti hore ciidamada wadankaasi Ukraine waxa ay ku eedeeyeen in ay afduubteen governatorihii magaaladaasi. sidoo kale waxaa jirta in madaxweynaha wadankaasi Ukraine Volodymyr Zelensky uu khadka telefoonka uu kula hadlay ra'iisul wasaaraha Israel Naftali Bennett, waxaana ay ka wada hadleen suurtagalnimada in wadaxaajoodka nabadda loo soo wareejiyo dhinaca Israel si loo joojiyo ayaa la yiri dagaalka ka socda wadankaasi Ukraine. bartiisa Twitterka ayaa waxa uu ku soo qoray in uu kala hadlay duulaanka wadankaasi Ruushka Israel ra'iisul wasaaraheedii iyo sidii xal loogu heli lahaa soo gabagabeynta duulaankaasi. waxa uu sidoo kale uu sheegay inuu ka dalbaday in taageero la fidiyo dowladda Israa'iilna ay ka qayb qaadato sidii ciidamada Ruushka ay u soo deyn lahaayeen gudoomiyihii magaalada Mariupol oo ay horey ay xafiiskiisa ay uga qafaasheen. afhayeen u hadlay ra'iisul wasaaraha Israa'iil ayaa BBC-da waxa uu sheegay in wadahadaladaasi khadka telefoonka uu qaatay in ka badan muddo saacada. labada dhinacna waxa ay isla garteen ayaa la yiri suurtagalnimada in la raadiyo wadiiqo lagu joojin lahaa dagaalka ku socda wadankaasi Ukraine iyo dadaalada Israa'iil ee ilaa iyo hadda aanan muuqan. madaxweynaha Ukraine ayaa waxa uu soo jeeday in magaalada Quds laga dhigo meesha rasmiga ah ay ku wada hadlayaan madaxda wadamada Ukraine iyo sidoo kale wadankaasi Ruushka si dagaalka loo joojiyo. suxufiyiinta isaga oo la hadlayay waxa uu sheegay in uu doonayo xilligani in uu la kulmo madaxda wadankaasi Ruushka iyo Belarus, waxaana sidoo kale uu sheegay in uu doonayo in heshiis la gaaro si dagaalka loo joojiyo. mar wax laga weydiiyey suurtagalnimada Israa'iil inay garwadeen ay ka noqon doonto wadahadaladaasi ayaa waxa uu sheegay in magaalada Quds ay u baahan yihiin in laga dhigo xarunta rasmiga ah ee ay ku wada hadli doonaan madaxda wadamada Ukraine iyo sidoo kale wadankaasi Ruushka. waxa uu sidoo kale uu shaaca ka qaaday in ay doonayaan muddo 7 gudaheeda in wadahadaladaasi lagu qabto si loo soo gabagabeeyo ayuu yiri dagaalka dowladda Ruushka ay ku hayso wadankaasi Ukraine. ilaa iyo hadda waxaa la tilmaamayaa kaliya in ay 3 jeer ay kulmeen wufuud ka socotay wadamada Ruushka iyo sidoo kale Ukraine, kuwaasi oo iyagu wadaxaajoodkoodii uu ka socday wadankaasi Belarus. wasiirada arrimaha dibadda labada dal ayaa khamiistii lasoo dhaafay waxa ay ku kulmeen magaalada Antalya ee wadanka Turkiga. mabda ahaan waxaa lasoo sheegayaa in aysan xukuumadda Moscow aysan iska fogeynin suurtagalnimada in madaxweyne Putin uu kulan la qaato madaxweynaha wadanka Ukraine. afhayeen u hadlay aqalka Kremlin-ka ee dalkaasi Ruushka Dmitry Peskov ayaa waxa uu galankii dambe Jimcihii uu sheegay in marka ugu horeysa ay shuruud ay ku xirayaan kaasi oo ku saabsan in wufuudii heerka wasiir ahaa ay door weyn ay ka qaataan soo gabagabeynta wadaxaajoodka hadda socda iyo sidoo kale abaabulka kulanka u dhexeeya labada madaxweyne. wakaalada wararka ee Ruushka ayaa soo xiganaysa mas-uul sare oo ka tirsan wasaaradda difaaca ee Ruushka oo isagu sheegaya in wadciga bini'aadanimo ee wadankaasi Ukraine ay sii kordhayso, waxaana uu eedeyn u jeediyey ciidamada wadankaasi Ukraine iyo sidoo kale calooshooda shaqaystayaal iyagu meelo badan burburiyey, gaar ahaan buundooyinkii iyo sidoo kale wadooyinkii muhiimka ahaa. waxa uu ku eedeeyey Ukraine ama ay ku eedeysay dowladda Ukraine ciidamada wadankaasi Ruushka in 7 qof oo rayid ah oo haweenaya caruur ay ku jiraan
ay dileen iyagoo isku dayaya inay ka baxsadaan dagaalka ka qarxay meelo u dhow magaalada Kiev ee caasimadda waddankaasi Ukraine. Sirdoonka Ukraine ayaa waxa ay sheegeen in 7 qof ee la dilay canug yar uu ku jiro oo isku dayay inay isaga baxsadaan isaga iyo qoyskiisa tuulada Berimoha ee waddankaasi Ukraine. Dadka qaarkood waxaa lagu qasbayaa in guryahoodii ay ku sii sugnaadaan intii ay baxsan lahaayeen. Wakaalada wararka ee Reuters ayaa soo xiganaysa goobjoogayaal iyagu sheegaya in dowladda Ruushka ciidamadeedii ay diideen in qof amaba in dadku ay ka baxaan magaalada Mariupol. Moscow waxa ay beenisay eedeynta loo soo jeediyay ee ku saabsan in dadka rayidka ah ay ku bartilmaameedsanayso duulaanka ay ku qaaday waddankaasi Ukraine. waxaana sidoo kale ay shaacay ka qaaday in meelaha ay bartilmaameedsanayso ay yihiin xarumaha cusub ee saldhigyadu ay ka dhiganayaan ciidamada waddankaasi Ukraine. shirkii jaraa'id ee madaxweynaha waddankaasi Ukraine waxa uu ku faahfaahiyey 1300 oo askarta waddankaasi Ukraine oo lagu dilay tan iyo bilowgii dagaalka Ruushka ku qaaday waddankaasi Ukraine 24 February. markiisii ugu horeysay waxa uu ka hadlay in saraakiisha dalkaasi Ukraine uu khasaaro soo gaaray kuwa uu ku saabsan in 1300 oo askari looga dilay weerarada cirka iyo dhulka oo ay dowladda Ruushka ay ka wado waddankaasi. waqtigaasi ay jirto waxa uu tilmaamay in xukuumadda Moscow ay kordhinayso ciidamada ay ku soo daabulayso waddankaasi Ukraine si ay howlgal xoogan ay ugu qabsato magaalada Kiev.